حديث كان سدحي لواتنات عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن خطاب أيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب نبي عليه الصلاة والسلام أيولي ماضي كتاب كاسو أصابه كسو هلي من بعض أهل الكتاب قاركوض أيو كسو هلي أيو كسو قاتي فقرأه مركز وحا أخري النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عمر بن خطاب رضي الله عنه وارضاه أيا كتاب سوهلي كتاب توراة أم إنجيل وحنا كسو قاتي أهل الكتاب كقار كمدا يكسو قاتي مركز وحو لي ماذا النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه مركز وحا أخري كتابك نبي عليه الصلاة والسلام أيا أخري كتابك انتو كقاضي أما عمر نبي وليبي نبينا عليه الصلاة والسلام مركز أخري كتابكاس فغضب مركز حناقي نبي عليه الصلاة والسلام فقال وحيري أمتهوكون كو ورير سمياتين أو قرئس كطورة فيها رسالة لحظة ديو دينتان يا ابن خطاب ويلكيسيو والذي كي أيان كدارتي نفسي دي بيده قعنتي سيكوشرتو لقد جئتكم حقيق ذي وان ذي ماذي بها رسالة بيضاء أيضا أطو نقية هدين السافئة لا تسألوهم هوي ديننا ويهودي ويأم أهل الكتاب عن شيء حقيس أو فيخبروكم مركز إذن ورما إذن شيغان بحق شيء حقا أو فتكذبوا مركز بينسان به حقاس أو بباطل أما باطل إذن شيغان وحباطل آنجرين إذن شيغان أو فتصدقوا مركز رميسان به باطل كاس والذي كي أيان كل أرتي نفسي دي بيده قعنت سيكوشرتو لو أن موسى كان هدو حالا حيا مد نول ما وسعه واسع نقول لهين إلا أن يتبعني إنو إسورة عمويه مركا حديث كان وحوليه حي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أما كمدا صحابة كو قيمة بضن أيام مالن وحوي ماذا النبي عليه الصلاة والسلام أسيو كتاب كاس أموا توراة أموا إنجيل يعني أهل الكتاب ككتاب كذا يوتي قار كمدا أهل الكتاب كيكسو قاتي كتاب كيسو قاتي مركز وحوي ماذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي أيا كتاب كأخري نبي عليه الصلاة والسلام أيا كتاب كأخري مركز نبي هو حناقي كتاب مركو أخري أيوه حناقي وأيو أهل الكتاب ككتاب كوضا وحبضا باك خلدان ويبدلين قار رون iyo qaar beena way isugu jiraan kitaabka marka lama fahmi karo qofka markuu akhriyo laba mid un bay noqotaa wax xaq ah inuu beeniyo uu yiraahdo waxa been waxba kama jiraan ama wax baadil ay qoreen oo ay bedbedeleen inuu rumeeyo uu yiraahdo waa xaq inuu yiraahdo labadaas mid un bay noqotaa marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam saxaabadiisa maadaama ay aqoonaysan u lahayn kitaabkaas inuu xaq yahay ama wixii xaq ay wixii baadil aysan kala garaneyn asiga inay ka fogaadaan ayuu doonaya inay dhaxgalaan ma rabo marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam markuu arkay Umar bin Khattab oo kitaabkan weetu akhrinayo oo nabigu u yimaaday nabigu ku xanaaqay markaas nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri war ku wareersan miyaatihiin risaaladan iyo diintan aan idin yimaado dhaxdeeda oo maxaad ku faleysaan waxaan weey markaas wuxuu yiri ilaahay aan ku dhaartay waxaan idin yimaaday risaalo cad oo hadana saafi ah diin cad oo mugd aan ku jirin oo hadana saafi ayaan idin yimaaday war diintan idin ku filan diintan qaata oo diintan akhrista oo kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala idin soo dejiyay iyo xadiiska nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ay idin ku filan inaad ahlul kitaab aadaan kitaabkooda waxa akhrisataan dambe idin kuma jirto marka nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam kadib wuxuu yiri la tasaluhum an shay'in war ahlul kitaabka waxba yaa la weydiinin iska daayo waxba ha weydiinina sababta maxay tahay wuxuu yiri nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxay idin sheegayaan shay xaq ah idin sheegayaan markaas idinkan aqoon u leeyihiin sheega ma xaqba ma beenba ilaan kitaabkooda waa la badbedelay markaas xaq idin sheegaan markaas aad beeninaysaan wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay ayaad beeninaysaan waadna ku dambaabaysaan ama waxay idin sheegaan wax baadil ah wax aan jirin wax Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dejinin oo kitaabka ay ku qorqoreen ay badbedeleen ayay idin sheegayaan markaas aad rumaynaysaan oo i'tiqaadinaysaan Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo dejiyay marka maadaama aqoon idin u lahayn asiga dhanba banaanka kamara kitaabka Rabbi subhanahu wa ta'ala ay idin ku filan iyo sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ayda qaata ayda barta inaad aadaan kitaab kala
looma baahna wey. intaas kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay aan ku dhaartee nabilahi muuse calayhi salaatu wasalaam hadduu noolaan lahaa oo maanta uu joogi lahaa aniga ayuu isoo raaci lahaa. yacni wuxuu ka mid noqon lahaa saxaabadeyda iyo dadka i raacsan ayuu ka mid noqon lahaa. marka dadkan ahlul kitaabka ah oo maanta diiday inay isoo raacaan oo kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala ay qaataan iyo diintaan la yimaaday, haddii kitaabka ay haystaan qofka lagu soo dejiyey hadduu aanay isoo raaci lahaa, yacni maanta idinkaa ka xaboon wey inaad isoo raacdaan. idinkoo saxaabadeyda ah oo qoomkeeda ah idinkaa ka xaboon. marka kitaabkooda waxaad intaad iska dhaaftaan diintaan idinla yimaaday qaati weysii dhab ah u qaata. taas ayuu ka hadlayaa. qofka muslimka waxaa la doonayaa diintiisa inuu barto, kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala inuu barto, axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu barto. diintiisa markuu barto oo meel uu saaro, markaas wuu baran karaa dadkan gaalada ah waxay aaminsan yihiin oo diin ahaan ay u aaminsan yihiin. markaas wuu baran karaa soo hadhow xujada uga oogo ama uu la doodo. laakiin asigoo diintiisa uusan aqoonin, kitaabka rabbi subxaanahu uusan aqoonin, sunnada uusan aqoonin, inuu baxo uu barto dadkaas kitaabkooda, taas lama rabo, taas waa xaaraan wey. qofkan waxaa la doonayaa hadduu wax baranayo kowda kitaabkiisa ha ka bilaabo, sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ha ka bilaabo, ha akhristo, ha barto. markuu meel uu saaro kadib wixii uu baran kara ha barto. taas ayaa la doonayaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam taasi uu noo dardaarmaya.